الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت وحي نشوقنا آسكي قيردي مرحوم مجاهد محمد حاشي علمي marka ugu horeysa Ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo. Maxamed Xaashi waxaan ka taxadeynayaa marka ugu horeysa qarankan uu soo halgamay waqti fara badan uu ku soo lumiyay tacab fara badan uu soo geliyay ayaan maxaan ku dhahday ka taxadeynayaa barlabaadka waxaan ka taxadeynayaa ehelkii qaraabadii qoyskii xaaskii caruurtay dhashay ee uu ka tagay Maxamed Xaashi halgankan qarankan waxa uu bilaabay xilli aad iyo aad u horeysa oo dad badan aanay bilaabin oo dad badan ay shaqaysanayeen ayuu ka bilaabay dalkii Sacuudi Arabiya loo oran jiray wuxuu ka mid yahay dadkii tobaneeyada ahaa asaasay halgankii SNM oo aan filayo maanta inay ka noolaayeen Maxamed Xaashi Cilmi iyo Cabdisalaan Yaasiin Professor Cabdisalaan Yaasiin iyo Xasan Ciise Jaamac saddexdaan niba ka noolaa oo uu ku saddex yahay Maxamed Xaashi hawl badan buu soo qabtay halgan badan buu ummadan geliyay Maxamed Xaashi waxaan anagu imika oran karayaa dadkii ugu horeeyay ee aan kulannay markii SNM la bilaabay buu ahaa isaga guddidiisii ay hadda saddexdaan nin ka nool yihiin Maxamed Xaashi Cilmi ma shaqaysan hanti maanta kama tegin ana waxaan garanayaa Ibraahim kan iyo Muuse iyo qoladii beriga gudaha lagu jiray halganka la bilaabayay waxaan maleynayaa Muuse oo isku reer Hargeysa hayaan haddaanu garanaynin Maxamed Xaashi anigu ma garanaynin qof waliba wuxuu yiqiinay nin la yiraahdo Gadle Maxamed Xaashi oo dawladda Soomaaliya ay ilaa xad gaadhay Maxamed Xaashi in madax la diro oo dawladda Sacuudiga looga ashkatoodo yacni markaa hay'ad buu lahaa company buu lahaa 500,000 600,000 700,000 oo riyaal ayuu qandaraasyo ku qaadan jiray waxaasoo dhan oo hantiya uu iska laalaabay halgankii buu yimi wuu soo halgamay si macnale buu soo halgamay qarankiisa wuu soo shaqeeyay maanta waynu aasaynaa waxaynu ku xasuusanaynaa Maxamed Xaashi Cilmi inuu yahay qof inoo soo halgamay oo daayartiinan iyo daaka weynba ninkii hawlahan sameeyay uu ahaa Ilaahay ha u naxariisto innakana samiriye iimaan ha inaga siiyo qoyskiisina samiriye iimaan ha ka siiyo إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت واحد شوقنا آسكي محمد حاشي علمي إلهي هون حريصه إلهي قدك هون نوره وحلالي وحاينك ما أنت إنه قبل كره دعم بينك دبقين كره وحلالي إيه وحكاين كورني كره ما يشيله قدوم مقادي كره وحوي وتجي إلهي قدك هون نوره إلهي أبدك كتجينا وبالخير ده كدقو ومدة وقت هاي سقوطني وحسوا حويان ووحي وقشطيهم قف والبا وحي ودتك كل هاي أي كم غناية أنت سلادة كنت كنيسي يا أنت ودعينيسي يا أنت كدم غطي إلهي هون حريص وحوي وحي وودن كان قشطي وسوى هالجمي يسوى دليرة ودتك شقيسني وشقدي سالك على كمرة وكدور بتحينه يدر حريه xoriintina wataa ku joogtaan waxa weeyaan dadkii wadankan u soo dhintay ee xil walba u soo qabtay ee dhismihii dambe ka qayb galay ee wax walba ka qayb galay ayuu ahaa waxaan leeyahay ilaahay samiriye iimaanahasi inaga sii hawna naxariiso godkana haw nuuro Maxamed Xaashi Cilmi ilaahay samiriye iimaan inaga sii mujaahidiintiina ilaahay samiriye iimaan ka sii tolkood iyo eheladiina ilaahay samiriye iimaan ka sii أنا محمد حاشي علمي waxaan ku xasuustaa waxa weeyaan SNM markuu secretary of finance ka noqday macna lacagtii deeragii hore sidii la jeelis ayuu xidhay uu adkeeyay meel adag buu galiyay markaas aan dhibir aad la waayay waxa weeyaan meel bay ku baxaysaa loogu tala galay lacagtii la soo diray ujeedadii ku baxaysaa waxa weeyaan ninka wanaagsan wax wanaagsan dalkiisa u qabtay muu dhiman he's alive muu dhiman ha ku riyoonina
ninka waddankiisa wax wanaagsan u qabtay muu dhiman adeer soo maad garan maxamed xaashina uu nooli insha allah buwaagna waa laga qori doonaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maxamed xaashi cilmi ilaahay jannatul firdawsaha ka waraabiyo allahumma arhamhu waghfirhu wa'fu anhu wa'afihi آمين إلهي سبحانه وتعالى ومدة أنت شوكت دبد يجود عاو ما أنت دعوانا إصلا هي مدة شاي سقطتمي إلهي حقق بل الدعاء ده إلهي حقق بل الدعاء ده ما أنت واحد لنا هدتك السومالي لأن ملك استوى شوكان دبد يجوده مركو هروين عفيان إلهي نحرس دي جنة كورابي جنة الفردوس إلهي حقي قبرك إلهي حول نوره دنبقيس إلهي حدافو إنك جودهان إلهي سمري إيمان هاي نقصيو محمد حاشي وأني لو ذا يقان سياسي بوها إن هذا العد بوها وحي وحكتر سريين السامحان وأين وذا سامحنو إلهي نقبل إنه جنة فردوس كيو إنك سبيل يبان يقصي إنك الكيسي دولة السماء تتقاعدن مركا وحن له هلا سامحه وحي وحكتر سنة مركا عن سامحنا فاتحنا ومرين إلى إنا لله وإنا إليه راجعون أنا قف ولي بمركو قيامه سبا دعي كادو كروغا إيا قرية إلا قرية موية كل هدو قبرية تغو ما نتهم تشرا قيل وحنا لما قلين كرو ما أنت نقود بعد عي قويسكو كتغي إيا قراكبا قروغو وحن له هاي إلهي محمد حاشي هون حريص محمد حاشي هنا يلقون نعب محمد حاشي رشاك بوها حق شاك بوها حلال مال بوها ودني بوها هلقموها نعلمي غيبان بوها نإلهي يا رسول كيسا كحنا بوها نتاعد بوها نما شقي سبوها انت صدق محمد حاشي والله حصريه انت انا إلهي أدوك يالا اللي يساكو جعل ما أنت أنا اللي يسيب هرتك إلهي واحد كبرينا نحارتي جنة إنه سيو قبرك إنه فارليو قبرك إنه واسعه قويسكو كنتك إيا قارك دمانتينا إنه إلهي سميديا نقل سيو إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هون حارستو مرحوم محمد حاشي علمي الجماجي وينا وضيقي وينا قرنك iyo ummadeena oo dhan ka baxay aynu maanta aasayno waxaynu ugu ducaynaynaa ilaahay inuu jannada ka waraabiyo inuu ilaahay samiriye iimaan naga siiyo qoyskiisii iyo qaraabadiisii iyo ehelkiisii wixii wanaagsanaa iyo taariikhdii dheeraad ee dalka ku lahaa dadka u soo qabtayna in ilaahay miisaanka xasanaadka uu ugu daro bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeridu waa xaq waxay naga baxay maanta halgamaa weyn bay naga baxay naxariistii janno allah ka waraabiye maxamed xaashi cilmi ergeynu nahay dhammaanteen maanta ergeynu nahay ilaahay jannatul firdaws allah geeyo ilaahay waxaynu uga baryaynaa taariikhdiisa ma dhammayn karayne ilaahay u naxariisto naxariistii janno allah ka waraabiyo nebi maxamedna allah ku xidhiidhiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore ilaahay waxaan uga baryaynaa maxamed xaashi ilaahay jannooyinkiisa waasica ka waraabiyo waxa kale oo aan samiriye iimaan uga baryaynaa ilaahay ehelkiisii iyo dhammaan dalka Soomaaliland waxaan ilaahay ka baryaynaa halkiisii caawil khayr qabay inuu naga soo geliyo maxamed xaashi wuxuu ahaa mujaahid geesi ah wuxuu ahaa raggii u qalab qaatay dalkan maanta aynu joogno ee muxuu ahaa quruxda badan ee xorriyadda aynu la soo noqonay raggii u halgamay bilaabay buu ahaa maantana wuxuu hoyday isagoo halgankiisa midhihiisii arkay oo Soomaaliland dawlad tahay madax bannaan isaga iyo rag kale oo halkan jooga oo fara badan waxa raggii dhigooda u soo horeeyay waqtigoodaba iyo maalkoodii reer Soomaaliland waxaan leeyahay ragga maanta dhintay halgamayaasha iyo kuwii ka horeeyayba waxay luxud ka qabanayaan sidaan u ilaalino midhahoodii oo ah xorriyadda Soomaaliland ee maanta aynu ku naaloonayno ilaahayna waxaanu uga baryaynaa ilaahay jannooyinka waasica geliyo inta maxamed xaashi cilmi allah u naxariisto wuxuu ku dhashay magaalada Jigjiga quraanka halkaas ka bilaabay kadibna harar buu tegay la geeyay isagii Cabdulqaadir Xaashiba aakhirataankiina Somaliland Protectorate baa la keenay maaha Somaliland Protectorate
ayaa la keenay halkan uu ilaa iyo dugsiga farsamada gacanta markii dambe ku dhameeyay ilaa shahaadada masterka dalka Mareykanka ku soo sameeyay wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliya ka shaqeeyay injineer guud isagoo ah rag badan oo markaa ay dawladda hoosta iska yar arkeen buu ku jiray way la yar noqon weyday markaa shaqadii iskaga tagay dalka Sacuudi Arabiya aaday halkaas uu muddo joogay wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ugu horeeyay dareema waxa shacabka dadka Soomaaliland dareemayaan dulmi iyo xaq darro inay jirto dareemayay isaga iyo rag kale markaa ay ku jiraan hawlgal bay bilaabeen markii dambena Ingiriiska waa ku tagay ururka SNM ku dhawaaqay ilaa waqtiga isaga ah maxamed halgan ku buu soo jiray maxamed maalmihii la qaadayay dadka isugu dhow yihiin baan ahaa ay wada hadlaan wada sheekaystaan runtii aad baan u wada sheekaysan jiray maalin baa waxaan kula dooday had iyo jeer markaad xamar maqasho wada yar diiday maxamed uu kugu dhacay wuxuu igu yidhi diyaaradda aan ka raaco halkan xamar 3 saacadood iyo badh bay u sii socotaa baabuurka halkan aan ka raacaana jigjiga saacad iyo badh buu u socdaa anigoo jigjiga tegi kara maxaa diyaaradda sii saaray 3 saacadood iyo badh annaga wuxuu ahaa dadka isku xiriiriya Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida aniga hadda rag kale oo ka mid ah meesha jooga si waxaanu ka nimid jigjiga aniga aad baan isugu dhaweeyay heli qaraabana waan nahay waana hayno daabtigayna waa sodogayna waa saaxiibkayna waa intaba waa Allah uu naxariisto dadka reer Soomaaliland iyo dadka Soomaaliyeed dhan Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo عائلتي ريحة علمنا الله كصيو سبري إيمان عنو هذا ما يعود أنكو هاللي يعيقو حق بدن بتشوجي يرى ذي بالي لي قدريادو هذا الكلام يسوسيا مركب ولا مسحسين ذاتك الصومالي يسقوا ذي في السومالي أنت ماش كلنا مركب ورنا وكسحسين أنا مركب دمنا ونقول مهد علينا سيد عيقو سوق قيب قلنا هذه بدون سلامتي راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلهي سبري بان هاي نقصي ولكن محمد حاشي علمي إلهي قبرك هاو نورو إلهي سبحانه وتعالى هكذا أهل الجنة بإذن الله تعالى محمد شخص صالح وها الدنيا ذن جيريدو وحقوي وانا حنون بدن تهي لبقى فوق استو استعلا جيري با كلا قادة أو كلا كحيسة محمد وحن إلهي وقبرينا إهل كيسي قرابديسي إهلك يدمان بقرك السومالان إلهي سبري بان كسيو إساقنا إن إلهي سبحانه وتعالى قبرك ونوره هذا عدي أدون كان كهاري سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيان كتغين سيدا وسقو نبي محمد وتغي بينه إنه نوتغينا سيدا محمد مانتين نوغوه سيوقف البوه وينيا أي نكو عبرة قادنو هانا ينو نغطو عبرة قفلو إنغا ميدا أو مانتن نولينها أوغادو هالكا وصعديني هالكا تهي مركله waxaynu leenahay ilaahay qabriga uu nuuro maxamed xaashi cilmi ehelkiisii qaraabadiisii xaaskiisii caruurtiisii iyo ummadda reer Soomaaliland ba iyo ummadda Soomaaliyeed ba ilaahay sabriye baan ka siiyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سمعها النبشة وياتنا والله قبل الصعونية ولكن محمد حاشي وينو سونا كسبين وسي بالجرين إن إلهينا وحن يرجونا هاي إنه أدومنا يكسر صالح أبوها إلهي سندي في الدوسة كم ليس هذه أينو أبار جدينا إسقى أبار كنو جدينا وحي هاي سيدا إسقى ودا بشرية دا كاونا يكسر ولا إنه نقوم بد أينو كقدر إنه أو سي إخلاص يدا عندنا كتير الله وشقيه بالكاسين أينو نقول هذا أين حسوسنا إنه أين أبار كبدي دعانا ونراعينا وحنولنا إلهي تبقي سعادة نحريستي جنة إلهي هكورا بيو لله وإنا إليه راجعون إلهي نحريستنا هكورا بيو
injineer marxuum maxamed xaashi cilmi oo mas'uuliyado badan Soomaaliland ka soo qabtay kaliya waxaan doonayaa anigu inaan idhaahdo aynu u ducayno ciddii wax ka tabanaysa aynu cafino dhammaanteedna aynu soo cafino ugu dambayna aynu ku daymayno astaamihii wanaagsanaa maxamed xaashi oo ay ka mid ahaayeen curin daacadnimo hal adayg uu yaqaano meesha laga yimi iyo meesha la joogo iyo meesha la tagayo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay maxamed xaashi jannada ha geeyo ilaahu dambi dhaafo ilaahu naxariisto waxaan ku bartay anigu inuu yahay nin cadaali ahaa oo dawladnimada iyo ummadda runtii si cadaalada ugu shaqayn jiray ayaan ku bartay markii 1990 ay dalka la soo galay SNM iyo Soomaaliland iyo intii ka baxday ay soo gashay intii kala baxday ayaan ku bartay cadaalada uu sameey jiray dadkii baxay guryahoodii ka tagay sidoo ugu cadaalad sameey jiray ugu dagaalami jiray inta isla ka qaada guryahooda ama dulmiya uu la dagaalami jiray ayaan ku bartay ilaahay u naxariisto nin cadaaliya baa sidiisa kale inta dambe waan ogaa siyaasadda sidoo ugu jiray inuu nin wadani ahaa aad baan ugu bartay ilaahay u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maxamed xaashi cilmi ilaahay u naxariisto jannada firdawsa Allah ka waraab wixii dalkan uu tarana abaalkiisa Allah aakhiraha ka siiyo qoyskiisii iyo xaashi cilmi oo beela iyo ummadda iyo qaranka Soomaaliland iyo islaamka Allah subhanahu ka siiyo halkiisa cawl khayr qaba Allah ka keeno inagana ilaahay ha nooga daba naxariisto faatax